ugu dambeyntiina Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynihii hore ee Puntland ayaa magaalada Alexandria ee gobolka Virginia shalay waxa uu ku soo bandhigay buug uu qoray oo uu uga hadlayo caqabadaha xilliga kala guurka ee Soomaaliya iyo waliba taariikhdiisa. Gaas ayaa sheegay in xil laga qabto Soomaaliya aysan sahlanayn. Jacfar Kukay ayaa waxa uu ka qayb galay daahfurka buugaasi, warbixintan ayuuna nooga diyaariyay. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo horey Soomaaliya ra'iisul wasaare uga soo noqday Puntland madaxweyne ka ahaa intii u dhaxaysay 2014 iyo 2019 ayaa saxiixa buugiisa uu ugu magac daray caqabadaha xilliga kala guurka Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay dadweyne isaga kala yimid magaalada tan Washington iyo gobolada deriska la ah ee Virginia iyo Maryland. waxa uu kaga hadlayaa isaga taariikhdiisa laga soo bilaabo markii baadiyaha laga keenay ilaa waxbarashadiisii. marka koowaad chapterka koowaad arki doontaa wuxuu ka hadli doonaa taariikhda laga sheekeeyay ninkan gaaban meeshuu ka yimid. anuu baadiya aan ku dhashay reerkaygu baadiye ahaayeen. aabahayba aniga oo yar aniga iyo walaalkay ah oo 1 sano 6 bilood iga weyn ayuu wuxuu yiri midaan nolosha baadiyaha ka kaxayso waxbarti. adeerkay marka xamar joogaa la ii keenay Cabdiqaadir Cali Gaas la yiraahdo. waxa uu mid ka mid ah cutubyada buugiisa ku soo qaaday markii uu yimid Mareykanka iyo dhibkii uu ka soo maray in uu helo sharciga dalkan oo xilligaasi siyaabo kala duwan lagu raadin jiray. marka nimanka safarada ka shaqada artay niman waaweyn oo 7 feet ah oo gacmo intay leeyahay adiyaabayso intaan la sii murmayay wuxuu yiri sir remove yourself from my window. afka antu saka qaadan ereygii laba garba inta qabteen oo kor ii qaadeen oo iridda i geeyeen oo saa ii tureen birid soo xirtay. marka guur ma jiro xool ugu helmayo asylum waa la diiday maxaa la sameeyaa marka dad badan baa moogta sharciga bilaash saga helay moogta oo airportka lagu siiyay. waxa uu kaga hadlayaa 2010 markii uu ku laabtay Soomaaliya wasiirna uu ka noqday xukuumaddii markaa jirtay iyo heshiiskii Kampala Accord ee xilka looga qaaday Farmaajo oo xilliga ra'iisul wasaare ahaa. aniga markaa wasiirkii waxbarashada Cabdinuur ayaa la soconay wafdiga ka mid ahayn. waxaan yiri war dawladdeena meesha lagu tashanaya madaxweynihiina waa barnaamijkiina waa la ridaya maxaan sameeynaa adoo sheeko dheer buu ka qarsan doontaan barnaamijkan wacanay waxaan go'aan ku gaarnay inaan iscazilo at that point meesha inaan isku cazilo. actually we wrote really our resignation letter waan qornay istikhaaraan tukanay markaas waa June waxaan ku talagalnay inaan aniga soo cimrada aadno ka bacdina aan shaqadayda jacadda ku laabto isna shaqayso ku laabto. cutubka shanaadna waxa uu kaga hadlayaa caqabadihii isku horgudbay markii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu sanadkii 2011 u magacaabay ra'iisul wasaare isaga oo bedelay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilka ka tagay. chapterka afraad marka wuxuu ka hadlayaa isagu creating a government cabinet making and governing in time of famine. waxaa jira waqtiga anigu aan ku socdo waxay waqtigii majaacadii xumayd ma garanaysan 2011 ee aad wadanka uga jirtay. marka challenge ka ah wasiir magacaabid laftigeeda problem ah sababtoo waxa weeye madaxweynaha halkan jooga gudoomiyaha baarlamaanka isna oo stakeholder ah fadhiya in wax la wada dhiso oo la sameeyo cabinet la sameeyo wax sahlan ma ahayn. kasoo caqabadaha xilliga jiray oo amni xumadu ay koow ka ahayd iyadoo al-shabaab ay fadhiyeen goobo madaxtooyada Soomaaliya u muuqda haddana waxaa jiray arrimo kale oo isagu uu fursado u arkayay oo uu buugiisa ku xusay. Kampala waxa ku fiicnayd qashqashaada baarlamaanka la ka joojiyay so they could not make a motion ma aysan keeni karin sababtoo Kampala agreement ayay iyagu ansixintana waxa ku jiray inaan dawladda la taaban karin. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas intii uu hadlayay waxa uu ka dhawaajiyay in hadda aanu hunguri ka haynin in uu mar kale ka qayb qaato siyaasadda dalka isagoo xusay in caafimaad ahaan qoys ahaan iyo aakhiraba aanay u wanaagsanayn in xilligan siyaasadda Soomaaliya laga qayb galo. aniga hadda hamigaasi aad ugu weyna sababtoo ah cost badan bay leedahay madaxnimadu waxay leedahay mid personal ah oo caafimaadkaaga waxay leedahay mid family ah
your own family. It has a lot of cost. And really, dadka aad ugu dadaala inay madax noqdaan mar walba oo isku sii dhajiyaan ama kunta waa la yaabaa sababta waxa weeye this not enjoyment raaxa ma waa hell on earth. waxa uu xusay in dhaqanno aan fiicnayn oo ay beentu ka mid tahay ay madaxdu mararka qaar miciin bido laakiin waxa uu muujiyey inaanan la fogaysan karin in uu mar kale xil u tartamo. Jacfar Kukay, VOA, Alexandria, Virginia.